kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada maqaal kooban oo ku eegi doono 10 tababare ee ugu taajirsan kubadda cagta. Tababarayaasha ayaa mas'uul ka ah hogaaminta ciyaartooyda iyo tababarkooda si ay u soo bandhigaan ciyaar wanaagsan. Waa kuwa mas'uul ka ah inay qiimeyn ay ku sameeyaan kooxaha waloolanku kala dhaxeeyo si ay u helaan istiraatiijiyad u horseedi karta guusha. Si guul loo gaaro kooxaha waaweyn ee dunida waxay dadaal ay ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen tababarayaal awood u leh maamulka ciyaarta. Si kastaba 20 sano ee la soo dhaafay qaar ka mid ah tababarayaasha waxay bilaabeen inay qaataan lacag ka badan mid ay qaataan ciyaartooyda kubadda cagta ciyaarta. Waxaan muuqaalkan ku eegi doonaa 10 tababare ee ugu taajirsan waqtigan kubadda cagta. Fadlan inta aan guda gelin warbixinta muuqaalka daawade waxaan ka codsanayaa in janaalka aad ku soo biirto aad follow tiraado muuqaalkana like saarto saaxiib sports haddii aad tahay inaad sii share gareyso si saaxiibo badan ay u gaaro muuqaalkan. Mahadsanid. waxaynu ka bilaabeynaa kaalinta 10aad uu xajistay ninka lagu magacaabo Rafael Benitez oo horey tababare ugu soo noqday kooxaha Real Madrid iyo Liverpool, waxaana uu kaalinta 10aad uu ka galay liiska tababarayaasha ugu taajirsan dunida. Haatan waxa uu leeliyaa koox ka dhisan dalkaasi Shiinaha. mushaarkiisu waxa uu gaarayaa 15,423,642 milyan oo dollar. Benitez waxaa sanadii 2016 loo magacaabay tababaraha kooxda Everton, wuxuuna ka dhaqaaqay kooxdaasi 2019 markaas uu qabtay dalkaasi Shiinaha. Rafael Benitez ayaa soo caan sanadii 2005 markaas uu kooxda Liverpool uu leelinayay uu ku hogaamiyay horyaalka Yurub. kaalinta 9aad Massimiliano Allegri waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ugu taajirsan dunida. waxa uu soo dheelay Talyaaniga markii ugu dambeysay kooxda Juventus. Allegri waxa uu guulo waaweyn uu ku hogaamiyay kooxihiisa, waxaana uu mushaarkiisu uu gaarayaa 16,13,767 milyan oo dollar. Massimiliano Allegri waxa uu ka mid yahay 10 tababare ee ugu wanaagsan dunida kubadda cagta. Fabio Cannavaro waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ugu taajirsan dunida. waxa uu qayb ka ahaa ciyaartooyda xulka qaranka Talyaaniga. Haatan waxa uu ka mid yahay tababarayaasha kubadda cagta. waxa uu difaac kaga soo ciyaari jiray kooxo badan oo ka dhisan Talyaaniga, waana difaaca qura ee hantay abaalmarinta Ballon d'Or. kaalinta 7aad waxa ku jira ninka lagu magacaabo Ernesto Valverde. waa mid ka mid ah tababarayaasha kubadda cagta markii ugu dambeysay. waxa uu leelinayay kooxda kubadda cagta ee Barcelona halkaasi oo laga ciriyay. waxa kaalinta 6aad ku jira tababarihii Real Madrid dhawaan isaga hayaamay ee Zinedine Zidane. waxa uu ka mid yahay 10 tababare ee ugu taajirsan dunida. waxa uu ahaan jiray ciyaartooy dunida caan ka ah oo u dheeli jiray xulka qaranka Faransiiska. waxa uu ahaa tababaraha kooxda Real Madrid ee ka dhisan Spain tan iyo markii uu iska casilay. waxa uu qaadanayay mushaardan 27,278,982 milyan oo dollar. ciyaartooydan khadka dhexe ka dheeli jiray waxa uu ka mid yahay ciyaartooyda farakutiriska ah ee ku guuleystay koobka horyaalka Yurub isagoo tababaraya sidoo kale ciyaartooy ah. kaalinta 5aad Jose Mourinho waxa uu ka mid yahay tababarayaasha ugu wanaagsan uguna taajirsan dunida. Jose Mourinho dhalashadiisu waxay tahay dalka Portugal, waana tababarihii hore ee kooxaha ka dhisan Ingiriiska, Tottenham iyo sidoo kale kooxo dhowr oo ka dhisan horyaalka ayuu soo leeliyay. waxaa shaqada tababarnimo ee kooxda Manchester United laga ciriyay sanadii 2018. waxa uu dhowr jeer ku gacan saaray codsiyo ugu yimid dhowr kooxood in uu tababare u noqdo. Jose Mourinho waxa uu ku guuleystay koobo badan intii uu macallin ahaa, waxaana uu qaataa mushaar ahaan 27,920 milyan oo dollar. kaalinta 4aad waxa ku jira Jurgen Klopp waxa uu dhashay Jarmalka, waana tababaraha kooxda kubadda cagta ee Liverpool, waxaana lagu tiriyaa tababarayaasha ugu wanaagsan kubadda cagta. wuxuu kooxda Liverpool u horseeday inay ku guuleystaan koobka horyaalka Ingiriiska iyo sidoo kale tartanka Champions League. kaalinta 3aad waxa ku jira tababare Pep Guardiola. waa tababaraha ugu taajirsan Ingiriiska. waxa uu dhashay Spain, waana tababaraha kooxda kubadda cagta ee Manchester City, waxaana lagu tiriyaa tababaraha guulaha ugu badan ka gaaray caalamka. markii uu ciyaartooyda ahaa waxa uu waqti badan ku soo qaatay kooxda Barcelona, waxaana uu guulo badan u horseeday kooxo badan oo macallin uu soo noqday tababarahan. markii uu meel sare gaarsiiyay kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich, Pep Guardiola wuxuu sanadii 2016 uu ku soo biiray kooxda kubadda cagta ee Manchester City. waxa uu suuro gashay inuu soo dhiso xul ugu wanaagsan horyaalkaasi Ingiriiska inta la ogyahay taariikhda.
waxa uu sanadkiiba mushaar ahaan u qaataa tababarahan 32 milyan 77530 milyan oo dollar. tababaraha kaalinta labaad ku jira waa Antonio Conte, wuxuu tababarahan u dhashay dalka Talyaaniga waana tababaraha kooxda kubadda cagta Inter Milan. Conte yaraantiisa waxa uu ahaa xirfadle kubadda cagta markii dambe wuxuu noqday ciyaartooyda ugu saameynta badan kooxda Juventus. Wuxuu kooxda Inter Milan u horseeday inay gaarto ciyaaraha kama dambaysta ama uu kula guuleysto tartanka horyaalkaasi ee Talyaaniga. tababaraha kaalinta koowaad ku jiro waa Diego Simeone, waa tababaraha ugu taajirsan dunida. wuxuu sanadkiiba qaataa mushaar dhan 48 milyan 50,577 milyan oo dollar. wuxuu ka mid yahay tababarayaasha ugu mushaarka fiican sanadka 2021. tababarahan u dhashay Argentina wuxuu kooxdiisa Atletico de Madrid gaarsiiyay inay qaadaan horyaalka La Liga oo kooxdiisu muddo dheer aysan ku guuleysan. waa kooxda Atletico de Madrid. asiga ayaana ah tababaraha ugu taajirsan waqtigan kubadda cagta kaalinta koowaad ayuuna kaga jira. fadlan daawade ilaa iyo dhamaadka muuqaalka haddii aad inala jirtay oo adan muuqaalka like saar sina share garee si saaxiibo badan oo sports channelkan ay ugu soo biiraan. mahadsanid.